xafladan qalinjabinta oo loo sameeyo ku dhawaad 50 arday oo isugu jirta kuwa dhamaysata dugsiyada sare iyo kuwa ka qalinjabiya caafimaad ayaa waxaa maanta lagu qabtay Hotel Central ee bartamaha magaalada Cadaado. xafladan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada Cadaado, aqoon-yahano, salaadiin, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana uu horeeyay xafladda furay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Toole. waxaan leenahay aqoonta halkaas laga sii wado dadkana hal ogaado inaan wax la barto waxa keenay fursadda nabadgelyada qof kasta oo dadka ka mid haddii uu soo nabadgelyadiisa waxma barteen waxaan leenahay hal lagu dadaalo nabadgelyada laga shaqeeyo nabadgelyada qof kasta inuu qofka wanaagooda uu u kaalmeeyo hal laga shaqeeyo. intii ay socotay xafladda qalinjabinta ayaa waxaa kooxaha wadajir iyo midnimo ay halkaasi ku soo bandhigeen riwaayado iyo heese ka turjumaya qiimaha ay leedahay waxbarashada. qaar ka mid ah aqoon-yahanada ka soo qayb gala xafladda ayaa kula dardaarmay ardayda dhamaysata dugsiyada sare inay ka daalaan waxbarashada oo ay sii wataan. ilaas waxaan ku faraxsanahay inay noqdeen iskoolkii ugu horeeyay oo keena waxbarashada dadka waaweyn. waxaan xasuustaa dad badan oo saaxiibadaya maanta qalin jabinaya niyaduna uma hayn lagama yaabo inay ku dhiiradaan waxbarasho inay maanta bartaan. waxaan ku faraxsanahay maanta inay yihiin dadka ka qalin jabinaya waa saaxiibaday maanta waxaan ku faraxsanahay inay ku soo biireen dugsiga sare. waa meelaha ugu muhiimsan oo qofka shahaadaha hadii la weydiiyo la yiraahdo ugu yaraan dugsi sare inuu haysto. waan ku faraxsanahay maanta in halkaas soo gaartaan. cilmi tiir leh caqliga waqtara talaba la baare bugta taale barasha tacab leh tigsi hadaf baale meel la isku taago toobiye iyo tiro ardada. Ustaad Maxamed Maxamuud Qadar oo kamid ah macallimiinta iskuulka Ilees ahna maamulaha jaamacadda Salaama farceeda magaalada Cadaado ayaa sheegay waxbarashada ay ardayda ugu timid guryahooda ayna tahay fursad muhiim ah loona baahan yahay inay ka faa'iideystaan. dhammaan dadaalka soo gasheen iyo heerarkii kala duwanaa soo marteen weli waxba ay kaga dhiman ayaan leeyahay. haddii aan kala qaado heerka secondary-ga waxaad ka soo gudubteen ama aad bilaabaysaan maanta heerkiina mustaqbal inaad ka tashataan. waxaad bilaabaysaan inaad heerkii takhasusi ama heerkii jaamacad ama heerkii noloshaada dambe aad kasii fikirto. saas ogeed marka ardada secondary-ga dhammaysay waxaan ku dhiirigelinaynaa inay iska dhisaan qof walba meesha oo daciifka ka yahay. maamulaha iskuulka Ilees Maxamed Axmed Galcaafi oo ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday waxyaabaha uu iskuulkan u qabto ardayda waxaana amaanay kartida ay muujiyeen ardayda dhamaysata dugsiyada sare. kaga mahad celinayaa maanta waxaan si weyn farxad ii gelinaysaa in arday qalin jabiyay oo dhamaystay macnaha ama soo macallinkii saaxiibkay macallin maxamed uu yiri qalin bedeshay waa qalin bedelateen waa sax. maanta waxaan sugaysaan inaan jaamacad iyo waqti badan ugu dambeyntii ayaa waxaa munaasabadda soo xiray agaasimaha waxbarashada Galmudug Axmed Nuur Cismaan isagoo hadallada daarna kadib shahaadooyin guddoonsiiyay qaar ka mid ah ardayda dhamaysata dugsiyada sare. marka aan fiirino deegaanadeena Galmudug muhiimadaasina waxay tahay iskuulaadka sidaan oo kale ah way ku yar yihiin markii la yiraahdo deegaanadeena Galmudug. ayagana waxay ka mid tahay meelaha ugu horeeya arday da'weyn ah ay heleen fursad ay wax ku bartaan oo ayagii oo shaqadoodii wata fursaddii ay wax ku baran lahaayeen haddana helay kana faa'iidaystay. Axmed Maxamed Xasan Axmed Suudaani, Jubaland TV, magaalada Cadaado.